wuxuuna ka hadlay xadiidkan maanta aan qaadan doono qofka muslimka ah wuxuu jecel yahay oo nafsadiisa uu la jecel yahay walaalkiisa kale muslimka inuu la jeclaado, inuusan noqon mid bakhiil ah ama mid xaasid ah, inuusan noqon. wuxuu naftiisa uu la jecel yahay walaalihiis muslimiinta kale inuu la jeclaado. can abi xamzata anas ibni malikin radia allahu canhu khaadimu rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam qaal. xadiidkan waxaa laga warinaya anas bni malik radia allahu canhu ardaa, khaadimi rasuulillaah sala allahu alayhi wasalam, rasuulka shaqaalihiis uu ahaa, rasuulka u shaqayn jiray. qaala wuxuu yidhi nabiga sala allahu alayhi wasalam, laa yu'minu ma rumaynayo axadukum midkiina xataa yuxiba liakhiihi ilaa walaalkiis uu la jeclaado maa yuxibu linafsihi wuxuu naftiisa uu la jecel yahay. rawaa waxaa soo saaray xadiidkan bukhaari wa muslim, bukhaari muslim ayaa soo saareen. marka nabiga sala allahu alayhi wasalam wuxuu leeyahay xadiidkan, midkiina lagama helin iimaan dhab ah ama iimaan dhammaystirin ilaa uu la jeclaado walaalkiisa wuxuu la jecelaha naftiisa, wuxuu naftiisa uu la jecel yahay uu la doonaayo walaalkiisa kale muslimka inuu la jeclaado. taasaa islaamnimada buuxda ah, taas ayaa ah islaamnimada dhabta ah ama iimaanka dhabta ah, waa kaas wey. wuxuu naftiisa uu la jecel yahay qofkan walaalkiisa muslimka ahna inuu la jeclaado wey. can abi xamzata anas bn malikin radia allahu canhu khaadimi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yidhi, laa yu'minu ma rumaynayo axadukum midkiina xataa yuxiba ilaa oo la jeclaado liakhiihi walaalkiisa maa yuxibu wuxuu la jecel yahay linafsihi nafsadiisi wey. rawahu albukhaariyu wa muslim.